maxaa ka jira in wasiir Ilyas uu u goostay dhinaca madaxweyne Laftagreen ciidamadii ugu badnaa oo Baydhabo ka baxay oo gaaray duleedka magaaladaasi wararkii ugu dambeeyay aadamadoobe oo guud ahaan Baydhabo isaga soo baxay isaga oo Muqdisho ku sugan walaac xoogan ayaa jira maxaa ka dhax socda Baydhabo iyo deegaanada kale ee Koonfur Galbeed Soomaaliya si gaar ah gobolka Bay xogahaas iyo xogo kale ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa saaxiibayaal ee soo dhawaada haddii aad markaa kugu horeysay aad soo booqato nagu soo biir oo channel-keenan subscribe dhaho qaybta hoose ee faaladana aragtidina nagula wadaaga sidoo kale saaxiibadana la sii wadaaga qaybta hoose ee faaladana saaxiibayaal aragtidina nagula wadaaga marka la soo dhawaada saaxiibayaal waxaan halkan idinku falanqeyn doonaa guud ahaan xaaladda siyaasadeed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya dagaalo laga cabsi qabo inay ka dhacaan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee Koonfur Galbeed Soomaaliya sababta aadamadoobe uu kaga soo baxay Baydhabo ayaan halkan idinku wehna saaxiibayaal aynu ku bilownaa wasiirkii warfaafinta ee Koonfur Galbeed Soomaaliya nin si weyn looga yaqaano deegaanada Koonfur Galbeed Ilyas Ali Nuur oo loo yaqaano walaalmayow waxa uu kamid ahaa dadkii ama siyaasiyiintii sida weyn dawladda federaalka Soomaaliya ugu soo dhaweysay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee Koonfur Galbeed kadib markii awood ciidan dawladdu ay adeegsatay sidoo kalena nidaamkii uu taageersanaa Ilyas ee madaxweyne Laftagreen uu hogaaminayay halkaasi laga saaray waxa taasi ay keentay in ciidamadii dawladdu qaybo kala duwan isugu jiray uu halkaasi ku soo dhaweeyo iyada oo magaalada Baydhabo inta ciidamada dawladda ku sugnaayeen siyaabooyin kala duwan uu ula shaqeynayay laakiin hadda xogaha iyo wararka kala duwan ee ka imaanaya dhinaciisu waxa ay tilmaamayaan in arrimahaas iyo edel ay soo gabagaboobeen saacadihii la soo dhaafay ilaa maalmihii la soo dhaafay tan iyo markii ay bilaabatay doorashada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee aadamadoobe uu ku soo baxay uu guud ahaanba isaga aamusay warbaahinta oo uu ka hadli jiray sidoo kale waxa la tilmaamay Ilyas Ali Nuur oo walaalmayow loo yaqaano ciidan ilaalo u ahaa oo gaar ahaa guud ahaanba ay ka baxeen gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ciidamadan keligooda ma bixin xogta aan helnay waxa ay sheegaysaa inay la baxsadeen hub culus oo ay wateen oo ay ku ilaalinayeen guriga wasiir Ilyas iyo guud ahaanba isaga waxaana taasi ay keentay in hadalheeno xooggan ay ka dhashaan aamusnaantiisa iyo guud ahaanba in warbaahintii bulshada oo siyaabooyin kala duwan muuqaalada uu ugu soo gudbi jiray isaga oo ka hadlaya xaaladda deegaanada Koonfur Galbeed guud ahaanba laga hakiyay ama uu ka aamusay waxa la wariyay xogta aan helnayna ay sheegaysaa in saacadihii la soo dhaafay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya si gaar ah kuwa booliiska gaarka ah u tababaran ee commandoska ama kuwa loo yaqaan haramcad ay baadigoobayeen ama ilaalo gaar ah ay ku hayeen wasiir Ilyas laakiin saacadihii la soo dhaafay waxa isa soo taray oo soo xoogeystay in guud ahaanba magaalada Baydhabo laga waayay iyada oo la aaminsan yahay in uu u goostay dhinaca madaxweyne Laftagreen gaar ahaan ciidamada duleedka magaalada Baydhabo ku sugan kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay siyaabooyin kala duwan u soo dhaweynayay rag saraakiil ah oo ay wehliyaan ciidankooda iyo sidoo kale hubkooda wasiir Ilyas waxa lagu xusuustaa inuu ahaa nin si weyn kaga soo horjeeday nidaamkii dawladda federaalka Soomaaliya ama habkii ay u wajahday colaadda maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya si gaar ah madaxweyne Laftagreen oo muddo ku siman doorasho 4 saacadood ku dhacday lagu doortay madaxweyne lagu dhaariyay xildhibaanadii baarlamaanka gudoonkii baarlamaanka lagu doortay taasi oo ugu dambeyn ay dadku u arkeen inay tahay mid aanan habboonayn laakiin tii aadamadoobe uu ku soo baxay ayaa la warinayaa in ay ka sii darnaydba oo ay dawladdu ku sheegaysay inay tahay doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacaysa deegaanba ka dhacday deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya umuurahaas iyo idil marka la isku dardaro wasiir Ilyas waxa la warinayaa hadda in uu qaatay go'aan adag oo ah in Baydhabo guud ahaanba uu isaga baxo kuna beero ciidamada madaxweyne Laftagreen ee ku sugan duleedka magaaladaasi iyada oo garab uu siinayo gaashaan u noqonayo in difaac kasta ama hool kasta oo ay ku jiraan inuu garab ku siiyo laakiin taasi dad badan ayaa dhaliilaya dad badanna waxa ay sheegayaan inaysan ka suuroobin wasiir Ilyas inuu tago madaxweyne Laftagreen dhinaciisa taasi oo hadalheen xooggan ay ka dhalatay saacadihii la soo dhaafay oo la waayay haddaba marka laga soo tago hadalheyntaas waxa jira ciidan kale oo horay u goostay taliye Caliyow ama taliyow Maxamed Ibrahim waxa uu kamid ahaa saraakiishii hogaamisay ciidamada daraawiishta gaarka gaar ahaan qaybta degmada Dinsor ee gobolka Bay iyadoo hadda xogaha la helayo ay sheegayaan in ciidan uu hogaaminayay taliyahaasi iyo sidoo kale hubkiisaba ay wada gaareen duleedka magaalada Baydhabo xiisad ayaa taagan dhaqdhaqaaq ciidanna waa uu socdaa marka la fiiriyo duleedka Baydhabo xitaa waxa gaaray dad shacab ah oo ka baxay isla gudaha magaalada Baydhabo iyaga oo qaar ragga saraakiisha ah ee halkaasi jooga xaasaskoodii halkaasi inta ay la tageen
la arkayo caruur ay iyagu dhaleen oo duleedka magaalada Baydhabo ku sugan oo ay halkaasi ku haystaan waxa la warinayaa in xilli kasta duulaan uu dhici karo dhaqdhaqaaqan ciidan waxa sii kordhiyay kadib markii uu Aadan Madoobe ka soo baxay magaalada Baydhabo iyada oo waliba cabsi xooggan ay ka taagan tahay gudaha magaalada xilli kastana weerar ay soo qaadi karaan ciidamadan taabacsan madaxweyne lafta gareen ee ku sugan duleedka magaalada Baydhabo wasiir Xasan Cabduqaadir Maxamed iyo sidoo kale ugaas Xasan Cabdi Maxamed ayaa labadoodaba dadka hadda sida weyn uga soo dhaxmuuqda baraha bulshada soo dhaweeya ragga saraakiisha ee wata ciidanka iyo sidoo kale hubkoodaba oo guud ahaanba la galay hawdka duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka Koonfur Galbeed Soomaaliya labadan sarkaal oo lagu daray saraakiishii hore u hogaamisay ciidamada daraawiishta gaarka ee booliiska Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa dhamaantood iyagana ku wada sugan isla gudaha magaaladaasi iyo deegaano kale oo duleedka ka magaalada Baydhabo kuwaas oo la tilmaamay in xaaladooda hadii ay sidan ku sii socoto wax walba ay ka suuragal noqon karto xogaha aan helino waxa ay sheegayaan in Aadan Madoobe guud ahaanba Baydhabo uu isaga soo baxay saacadii la soo dhaafayna sawirro iyo muuqaalo baraha bulshada lagu baahiyay ayaa tilmaamayay inuu ka soo degay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Muqdisho Aadan Madoobe hadalhayno xoogan ayaa ka jirta imaanshihiisa warar ayaa sheegaya in uu u yimid in xilkii gudoonka baarlamaanka ama gudoomiyaha baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka uu wareejiyo maadaama uu isagu noqday hogaamiyaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya sidoo kale xogta kale waxa ay sheegaysaa in Aadan Madoobe kalsooni buuxda uu ka waayay raggii saraakiisha ahaa xitaa kuwii la shaqeynayay ee gaar ahaan madaxtooyada uu ku aaminay xilli dhawaan uu magacawday saraakiil si weyn ula garab shaqeeyay oo waliba nidaamkii madaxweyne lafta gareen ka saaray magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa sidoo kale la warinayaa in Aadan Madoobe Muqdisho uu yimid in Xasan Sheekh uu la kulmo sidoo kale uu ka dalbado ciidan dheeraad ah oo la geeyo magaalada Baydhabo iyadoo xogahaasi oo dhan ay soo tarayaan haddana waxa jirta in si gaar ah hay'adaha ammaanka iyo guud ahaanba siyaasiyiinta Koonfur Galbeed ku wada sugan ay xilligan la tacaalayaan xaaladda guud ee magaalada Baydhabo si gaar ah ammaanka guud ahaan magaaladaasi iyadoo ciidan si gaar ah dowladda federaalka Soomaaliya ay u leedahay halkaasi loo geeyay inay sugaan ammaanka guud ee goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka ugu dambeynna la soo gabagabeeyay iyadoo wax qalalaasa ay ka dhaceen intii doorashooyinka ay socdeen marka laga reebo in gudaha magaalada qaarkood ay soo galaan mararka qaarkood ay soo galaan ciidamada madaxweyne lafta gareen taageersan oo ugu dambeyn saacada kadib marka ay gacanta ku dhigaan magaaladana dib isaga laabta sidoo kale Aadan Madoobe waxa la warinayaa xogtan ay sheegaysaa in rag saraakiil ah oo Baydhabo uu ka soo watay uu la yimid gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyadoo la tilmaamay in si gaar ah loogu tababaro iyagoo laga hortagayo qalalaase kale oo ka dhaca gudaha magaalada Baydhabo iyadoo waliba in badan oo kamid ah magaalada hadda ay ku sugan yihiin ciidan ka tirsan kuwa haram cad loo yaqaano oo shacabka qaarkood xitaa la tilmaamay inay kala kulmayaan dhibaato xooggan haddaba marka laga soo tago inahaasi oo idil waxa xogaha guud marka la isugu soo daro Koonfur Galbeed ka taagan xiisad siyaasadeed oo aad u adag madaxweyne lafta gareen ciidanka taabacsan oo duleedka magaalada Baydhabo ku suganna xilli kasta ayay weerar qaadi karaan mana jirto ilo rasmi ah ama muhiim ah oo xogtooda heli karta maadaama hub culus halkaasi lagu hayo hubkii dowladda federaalka Soomaaliya ay geysay magaalada Baydhabo qaarkood waxaan xogta ku helnay in guud ahaan dib looga soo saaray oo laga soo bixiyo hadda qayb ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka lagu soo celiyay qaarna gobolka Shabeellaha Hoose iyo Boqol kala geeyay si looga fogaado in hadii ciidamada madaxweyne lafta gareen ay soo galaan inay u gacan gasho hub ama u gacan galaan hub noocaasi ah oo waliba ay laga yaabo inay ku dagaalamaan ciidamada Itoobiya ee ku sugnaa gudaha magaalada Baydhabo ayaa iyagana la tilmaamay qaybtood inay isaga baxeen halka kuwa kalena waliba la tilmaamay in dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan ay ka wataan gudaha magaaladaasi wixii ka soo kordhay guud ahaanba saaxiibayaal xaaladda Koonfur Galbeed Soomaaliya barnaamijyadan wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa iyo socdaalka wasiir Ilyas la tilmaamay inuu ku baxay oo guud ahaanba uu kaga goostay maamulka ku meel gaarka ama hogaamiyaha ku meel gaarka ee dhawaan la magacaabay waliba intii uu xilka hayay saaxiib la ahaa laakiin markii uu soo baxay hogaamiye Aadan Madoobe guud ahaanba saraakiishii qaar ay ka baxeen ciidankii qaarna la tilmaamay inay safar u sii yihiin duleedka magaalada Baydhabo halka siyaasiyiintii qaarkood si weyn saameynta ugu lahaa bulshada dhexdeedana ay ka goosteenba oo qaarkood la warinayo in tuhun ah lafta gareen inay u galeen uu jiro wixii ka soo kordhay guud ahaan saaxiibayaal barnaamijyadan wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa ilaa dhamaadka hadii aad ila soo gaartay igu soo biir saaxiibada la sii wada qaybta hoose faaladan aragtiina nagu la wadaaga channelkana subscribe dhaha si aad u heshaan wararka degdega ah ee arrimaha amniga bulshada iyo arrimaha siyaasadda ee aan halkan ku baahino si aad u heshaan